gabadhan meesha ku aragto waxa la yiraahdaa Nuura Sayaswani. Gabadhan haddii aadan ku arkin social media 24 saacadood la soo dhaafay ana ku sheegaya wixii dhacay sababtoo ah dadku waxay yiraahdaan Faarax Soomaaliya faa'iido ma leh. Faarax Mijabasto hablihii buu xumeeyay laakiin dadka kale uma fiirsadaan. Marka hal mar sheekada ma idinka daba geenaya. Gabadhan meeshan ku aragtaa ninkeedu wuxuu galay shil gaari. Dabadeedna wuxuu noqday naafo. Malaha wuxuu noqday nin aan waxba qaban karin oo naafo ah. gabadhan haddaba ninkeeda kamiina tagin xaaladiisii adkaydna kumaysan nicin oo way la joogtay waxa uu noqotay sidii kalkaaliso oo kale markaan kalkaaliso ku leeyahay jirka uu meelisay cuntada afka u gelinaysay saxaradii ka qaadisay wax walba ay u sameeynaysa gabadhaasi ninkeeda isagoo xanuunsan oo macnaha hadee waxba aanan qabsan karin midda kale ilaahay qofka ibnu aadamkii waa inuu shaqeeyaa si uu lacag u helo gabadhaan iyada shaqo tagi jirtay maadaama ninku xanuunsanayo haddana shaqada waxa u sii dheer hal cunug bay u haysaa cunugii bay haysaa way shaqeynaysaa isaguna uu xanuunsanayaayo way ka war haysaa oo macnaha wax walba u qabanaysaa noloshaas waxay socotay oo ay gabadhaasi nolosha ku jirtay muddo 6 sano ah 6 sano ayay gabadhaasi intaas uu qaban jirtay eegada 6 bilood ma 4 bilood ma sanad ma 2 bilood ma 6 sano ugu dambeyn ninkii xanuunka uu ka kacay oo macnaha wuxuu noqday nin awood u leh in uu shaqeysto wax walbana qabsado iyadana maskaxdeeda waxa ku jirtay hadda uu bad nolol fiican gali doontaa sababtoo ah ninkaagi baa ku caafimaaday laguhu ku dhaqi isaga ku soo shaqeyn wax walbana isaga ku qaban doono macnaha culayskii badnaayay ku saarnaa ayuu in ka dajini oo macnaha iyadu maskaxdeeda waxay u sheegaysay wax wanaagsan isaguna markuu caafimaaday oo uu dhaqaaq sameeyay wixii ugu horeeyay sameeyay waxay ahayd gabadhii iska furay gabadh kale u aroosay gabadhii hore ee waxa soo dhan la soo mareysay aayar buu iska furay gabadh cusub ayuu aroosay ninkii waaba aruus ninkii nin hadda gabadhan dib u eegaya oo dhahaaya gabadhaani 6 sano ku agjiiftay oo macnaha 6 sano wax walba ku qaban jirtay hadda maxaad u qaban kartaa maba ahba ninkii kor buu u baxayba naakalu raadiyay tan maba arka wax walba soo qabatay adduunkan gabadhan marka lagu magacaabo Nuura Sayaswani magaca inaan sax ayaan rajaynayaa ismiina dhibin meena buuqin meena dagaaltamin ee aayar Facebook ay timiday qoraal bay ku soo qortay sawiradiina way soo bandhigtay qoraalkaasi wuxuu ahaa aan ku akhrinay hal mar aad baan idinku hambalyeynaya haweeneydan aad iga dooratay waxaan rajaynayaa inay ku daryeesho sidii aan ku daryeeri jiray waxaan rajaynayaa inay qalbigaaga farxad geliso sidii aan isugu dayay inaan farxad u geliyo waanan kala dhamaanay labadeenu hadda wixii ka bilaabma ugu dambeyntiina waxaan leeyahay dumarkoo dhan ilaahay ha inoo daayo gaar ahaan kuwa Soomaalidana madaxoo kor